Listen to that on Idol. On Idol, it's epic. That is so cool. بسم الله الرحمن الرحيم marka walaalayaal waxaan leeyahay kulligina xaggan ku soo dhawaada Masalla Motors maanta laga bilaabo ama caawa laga bilaabo idii furaya insha Allah. Assalaamu calaykum maanta waxaan soo booqday geerashka Masalla Motors oo laga furay xaafadda Masallaha gaar ahaan area u dhow diyaaradda Gulf Airlines ama hotelka diyaaradda ayaan ka wadaa geerashka oo ah geerash casri ah isla markaana noociisa kale ku cusub yahay oo dhaqanka magaalada Hargeysa uu hirgeliyay qof ka mid ah qurba joogta Soomaaliland bal marka hore boorka ku soo dhawaada sida idin muuqata waxa la Masalla Motors marka waxa ku yaala xaafadda Masallaha gaar ahaan Masalla Bari dhinacana waxa inaga xiga hotelka diyaaradda oo qof walba uu garanayo halkaas ay ku yaala tilmaanta koobaad marka geerashkan doonaya inaan gudaha u galo oo aan information iyo xog inta ka badan ay ka siiyo ku soo dhawaada muuqaalka imika waxaan joogaa reception-ka walaal marka hore waxaad ku soo dhawaataa AK Vlogs ku soo dhaw bal dadka waxyaalaha qabataan oo macaamiishan anigu kamid ahay bal waxyaalaha qabataan in yar oo xog guud in yar oo information walaal AK aad baa hortay ku soo dhaweynaa walaalo gacmo furan waxyaalahan qabano waxa kamid ah horta aad buu badan yahay service-ka bixinaa haday electrician noqoto haday woodworker noqoto haday mechanical noqoto duu shaqadooyinka gawaadhida oo dhan waliba gawaadhida casriga ah imka qurba joogteenu keensadaan haday Hyundai noqoto haday BMW noqoto haday gawaadhida battery ku shaqeeyay hybrid-ka noqoto duu shaqo kastaba waan qabanaa waliba waxaan kaga wanaagsan on time qofka ugu dhameynaa sida ugu dhaqsiyaha badan ee waqtigan u sheegno ayaa loogu dhameynaa haggii awal dhowrka wiigeed ka maqnaanaysa gaadhigaaga ee soo noqonaysa geerishada anagu waqti ka yar kana munaasibsan qofkuna uu gaadhigiisa markaba ka xaysaa ayaa ugu dhameynaa maalin iyo laba wax ka badan gaadhigiisa in qof ka yaalo lama ogola aad iyo aad baad mahadsan tahay daawadayaal imikana waxaan joognaa meel ka mid ah goobta shaqadu ka socoto waayo sida shaqaaluhu ay shaqaynayaan dhayaanayd oo idin shaqaynayaan bal marka waxaan doonayaa inaan waraysto shaqooyinka ay qabanayaan iyo sida ay dadka u adeegayaan iyo service-kooda waxyaalo kaga duwan yahay geerashada kale ee ka jira magaalada Hargeysa intaas ayaan doonayaa in xog faahfaahsan aan ka siiyo soo wanaagsan halkan shaqada ka socota gaari Mercedes ayaa halkan yaala oo laga shaqeynaya waxaan filayaa gaarigani waa European car baan filayaa shaqooyinka la qabanaya maxay gaariga walaal gaarigan imka wuxuu sheegaynayaa qaybta diagnostic-ga waxa ka socota imka shaqada engine kortu uu complete garay qaybta diagnostic uu sameeyaa software-ka markii imka machine-kii scanner-ka uu ku xiray gaariga ninkani waxa weeyaan magaciisa Faysaan baa la yiraahdaa he is the technician oo qaabilsan qaybta electric-ga gaariga software-kiisa waxa ku saabsan oo dhan and also wuxuu yahay isagu Mercedes technician and BMW gawaarida European ka dhan aad uu ku taqalusan yahay si fiican buu garanayaa gawaaridaas oo dhan marka runtii shaqo electric ku saabsan ama anything oo gaariga software-kiisa waxaas oo dhan this guy isaga waxa weeyaan is the right guy waa si wanaagsan Khaalidow ma jiraan shaqooyin kale oo aan qabataan oo aan ahayn in baabuurta computer-ka la saaro waan qabanaa shaqooyinka dhan waan qabanaa shaqo kasta oo ku saabsan gaariga waanu sameynaa haday noqoto engine-ka haday noqoto gearbox-ka haday noqoto booriga qaybta toosinta qaybta rinjiga waxaas oo dhan waanu sameynaa shaqo gaariga ku saabsan oo aanan ku sameynin xaggan ma jirto waxaan jeclaan lahaa inaad kuwa kale inaad neero tusto oo goobta ka socda gaarigan Land Cruiser-ka imika waa laga shaqeynayaa halkan waxa jooga mechanic ayaga isagana oo ah general mechanic gawaarida oo dhan sameeya marka gaarigan imika suspension-kiisa ee shaqo laga qabanayay and imika almost gaarigan shaqadiisa waa la dhameystiray
marka sidaad aragto gawaarida ayaa nooc modelkii doonaan haadaan haddii yihiin Jarmal haddii yihiin Toyota we do every cars oo wadanka yaala marka runtii makaanigiintana waxa weeyaan dayno shaqadooda si wanaagsan ay u qabsadaan marka masha Allah saad arkaysid imika gaarigan uu dhameystiray shaqo weynna waa laga qabanayay marka runtii saacad iyo 20 daqiiqo meelaha uu ku dhameystiray gaariga suspensionka hore oo dhan waa laga bedelay marka imika waxa jira gaarigan oo kala gaari Toyota weeyaan waa gawaarida nooca hybrid-ka ah ay batteriga ku shaqeeyaan marka iyaga naftigooda qofkii u baahda ama fahmi waaye uu noo iman kara iyaga naftigooda waxa weeyaan waanu sameynaa imika sidaad arkaysaan gaarigan kulley Hargeysa nooca kuma badna marka runtii waa ka isaga imika xaggana loo keenay marka naftigiisa service wuxuu u baahan yahay inuu qabanayna insha Allah gaarigan waa electric weeyaan 100% electric maaha laakiin adigu half electric because soddon markuu gaaro meelaha injiinkaas shida marka baabuurta noocaas oo nooca hybrid-ka loo yaqaano runtii customer-kan wuxuu u baahan yahay inuu qabanay insha Allah gaarigiisa shaqooyin yar way u dhiman yihiin inuu qaadan doonaa mar dhow haddii Ilaahay yiraahdo marka waxa jira ma jeclin gaariga inuu nagu raago waxaan jecelnahay gaariga suna markiiba si dhaqso ah inaan u sameeyno customer-kana qaato marka runtii waxaanu jecelnahay customer-ka service-ka saacad 2 saac wixii ka badan ma jeclin haddii cilad weyn aysan ku jirin marka runtii waxa weeyaan very fast halkan inaan baa soo shaqeynaya inaan ka wax qabanaya imika wuxuu sameynayaa qaybtii wuxuu ka shaqeynayaa gaariga computerka diagnostic machine-ku ku eegaya marka gaariga xoogaa cilad baa ku yara jirta marka imika badana ciladii oo dhan imika way soo baxday marka insha Allah we just waiting next 2 minutes inay report-ka dhan aan helno marka habkaas uu shaqeynaya marka shaqadana waxa weeyaan runtii shaqo isagu uu badana gaar u yahay marka after 2 minutes hadii la yiraahdo results ka dhawan helayna gaariga ciladiisa oo dhan basically wuxuu sameeyaa waxay tahay gaariga oo dhan ayuu scan gareynayaa cilada especially qaybta engine-ka iyo electric oo dhan yeah gaarigan imika haddaan ku yara fasilo waxa weeyaan gaari hadduu qofka ka xumaado ama laamiga gaari kaaga xumaado ama adigoo safar u socda ama ka soo socda gaarigan waa gaariga recovery-ga gaaridu soo qaada marka service-kana waanu haysanaa ama dadka magaalada jooga qofkii u baahda gaarigiisa u kici waayo geerishka geyn kari waaya hadduuna soo waco gaarigan waan soo qaadayna waan soo sameynayna gaarigiisana waan soo celin karnaa marka sidaad u jeeday gaarigan waa gaariga recovery-ga marka runtii gaarigana geerishka wax badan iyo macno badan ayuu sameeyaa halkan maxaa lagu qabtaa imika qolkan oo kale waxa lagu qabtaa waa qaybtii painting-ka gaariga lagu sameeyo spray booth-ka oo qaybta rinjiyeynta iyo wax oo dhan marka gaarigaaga markii la sameynayo xaggaas aad ka daawan kartaa imikaba gudaha gaari baa ku jira marka halkana waa qaybtii buufinta weeyaan dhinacan oo dhan marka Axmedow waxaan kuu sheegi lahaa halkan xitaa markay noqoto dhinaca nadaafadda geerishka aad baan u ilaalinaa security-giisu aad buu wanaagsan yahay marka runtii waxaad arki kartaa badanaa geerishada qaarkood sidii yihiin iyo anagu sidaan u ilaalinay nidaamka iyo nadaafadda geerishka aad bay u sareysaa dadka gawaaridoodna saasaan u ilaalin doonaa haddii la yiraahdo insha Allah marka waxaan leenahay dadka degan magaalada Hargeysa especially ku soo dhawaada 100% Masala Motors kamid ah customerska gaariga loo hagaajiyay iyo bal dareenkooda sida warkaan Sara Cabdi Axmed walaal bismillaahir rahmaanir rahiim gaariga waan idin nimid waana ka helay sidii la igu sameeyay waana maasha Allah aad baan ugu faraxsanahay geerishka cusub ee nala furay iyo customer service-ka waxa lagu hagaajiyay ka xumaa waxa iga wada xumaa cilado badan buu lahaa turusku ahaa xagga dambe ahaa rinji buu ahaa xagga candhada ahayd dabka ahayd wax walba oo baahnaa Khalid wuu qabtay walaal maxaad leedahay dadka marka waxaan leeyahay asxaabta iyo dadka iyo cid walba shacabka ku soo dhawaada waa geerish qurba jooga wax walba waad ka helaysaa wixii lagu sameeyayna waa diyaar qiimihiisuna aad buu fiican yahay wacdna way leeyihiin personally anigu waan ka helay waay geerish badan baan tagay laakiin geerish ka fiican waan waay yaad baa maasanta walaal wa alaykum asalaam wa rahmatullahi wa barakaatuh magacaygu waa Khadar Guluf meeshana la jaar baanu nahay
si wanaagsan marka gaadhiga lagu hagaajinay gaarigii shaqaaluhu waa kan waxa weeyaan Gulf Airline waxaan u doonan jirnay meelo fog oo haddana asbuucii la sugayo imika 2 days buu ku jiray aroortii buu baxayaa marka shaqo quality ah oo aad u wanaagsan waa loo qabanayaa marka xalay ka dhaqso badan yahay garashaa kale magaalada wuu ka dhaqso badan yahay wuu ka jaban yahay wuu ka quality wanaagsan yahay magaca walaal Umar Maxamed Umar maxaad meesha u joogtaa wallahi waxaan joogaa baabuurka la iga shaqeynayay meesha servicekeeda aad iyo aad baan uga helaa waa gaarish loo baahnaa baan oran karaa marka ma char bala tahay mise meel fog baan uga mid anu servicekan ka helay serviceka meesha yaala ee la iga shaqeeyay markaas darteed waan imiday masha Allah maxaa ka lagu hagaajiyay marka gaariga waxa ka sarsaar ijinka wax ka yarsi haayeen ijinkii marka jegreen kala computerkii baa yaala lagu jegreen iyo wax aliya wixii ka xun marka ijinkan hubinayay waxyaabaha ka siiya wax badan liga iyo wax badan baa laga baabiyay marka ma sha Allah wallahi aad iyo aad waan ka helay serviceka qabanayaan dad badan oo qurba joogina waxa ku dhibanaayeen sidii ay u helayeen service fiican oo baabuurtooda badanka aan halkiina ku badnayn service fiican loogu sameyn lahaa aad iyo aad u maasantahay daawadayaal saadin muuqata caawa roobna u daaya halkan waxa farshaxan aad u qurux badan oo lagu muujinayo shaqooyinka ay qabtaan shaqaalaha meesha ka shaqeeya sadartan baabuurtii oo la saarayo computerka ayaa halkan lagu sawiray maapkii meheradu ay lahayd marka Masalla Motors marka doonaysid inaad timaadid amaba doonaysid in gaar lagu sameeyo tilmaanta horaan kuu sheegay boorkiisa aad arkaysaa xudhanka galbeed ka xiga hotelka Gulf Airline ama hotelka diyaaradda boorkiisa ayaad arkaysaa halkaas ayaad insha Allah rajeynayaan ugu imaan doontaan wixii u baahan si aad iyo aad qurux badan oo idinku adeegaya daawadayaal intaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa muuqaalkan idinka soo duubaynay garajka Masalla Motors waxaan rajeynayaa xog idinku filan inaad ka hesheen wixii idinku u baahan inay garajka yimaadaan si wanaagsan ayaa loo soo dhaweynayaa looguna adeegayaa waa sidaa iyo muuqaal dambe oo xiiso leh intaan ku kulmayno assalaamu calaykum waraxmatullah